dowladda Somaliland ayaa saaka ka mamnuucday shaqaynta laanta BBC-da ee afka Soomaaliya ku hadasha ee ka howlgasha gudaha Somaliland iyaga oo ku tilmaamay inay hadallo lid ku ahaa qarannimada iyo jiritaanka Somaliland ay u adeegsadaan waxayna ku tilmaameen inay BBC-du ay si weyn dhulka oola gashay magacii Somaliland waa kan wasiirka warfaafinta Somaliland oo arrinkaas ka hadlaya inaan laba kelmadood ka idhaahdo labada kelmadood waxay ku saabsan yihiin shirkadda wararka ee BBC-da markii aanu wax badan wada hadalay ummadda reer Somaliland qof kasta goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo uuna soo gaarsiiyey fariin ah inay magacii ummadda reer Somaliland meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay'adda BBC-da laanta afka Soomaaliga markay magacii ummadda reer Somaliland hoos u dhigtay markay lumisay dhexdhexaadnimadii ay u haysay dadyowga af Soomaaliga ku hadla markii ay ka hor timid qarannimadii jamhuuriyadda Somaliland 65 sanadood oo ay shaqaynaysay oo ummadda reer Somaliland u shaqaynaysay iyadoo duruufo badan oo kala duwani ay ku soo shaqaynayeen ama dadka reer Somaliland ku dhageysanayay 65 sanadood maray gumaysi ahayd maray dawlad madax bannaan ahayd maray dalal kale isku jireen iyo maray madax bannaanayd oo 30 sano u dambeeyay BBC waxay aqoonsan weyday in ay tahay dal dimuqraadiya oo 30 sanadood cagahooda ku taagnaa oo doorashooyin galay oo 5 madaxweyne doorasho isku bedeleen oo 3 golo baarlamaan isku bedeleen ilaa iyo hadda ereyada ay u isticmaashaa waxay noqdeen kuwo aan u qalmin inay dhegaha ummadda reer Somaliland maqlaan waxay lumisay dhaqankii iyo taariikhdii jiritaanka ahaa ee ka dhaxeeyay ummadda reer Somaliland iyo BBC laga bilaabo maanta oo ah taariikhdu maanta tahay 18 bishii 7 19 bishii 7 23 waxaan go'aamiyey in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay BBC-du Somaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo cid walba iyo xafiis walba iyo mas'uul kasta oo qaranka ka tirsanina sidaas uu la soconaya ummadda reer Somaliland dhagahoodu waxay nagu badiyeen inaanu BBC-da ahayn BBC-da la dhageysan jiray ee ay tahay BBC ka duwan tii ummadda reer Somaliland la jaan qaaday 65 sanadood fakarka BBC-da loo abuurayna waxay ahayd markii aynu ahayn Somaliland Protectorate oo Ingiriisku xukumi jiray cidda afka Soomaaliga ku hadashay ee Ingiriisku markaa xukumaana ee toos u hoostagtaana waxay ahayd ummadda reer Somaliland dhaqan ahaan iyo culture ahaan iyo in la abuuro hay'adda BBC-du waxay ka soo jeeday doonistii ummadda reer Somaliland iyo Ingiriiska ka dhaxaysay haddana BBC waxay noqotay cadaawadda koowaad ee ummadda reer Somaliland magaceeda sharafteeda iyo milgaheedaba hoos u dhigay sidaa daraaddeed dawlad ahaan waxaanu go'aaminay mar labaad inaanu joojino wada shaqayn wixii aanu lanahayn dhammaanteed aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul baan idiin rajaynayaa wixii hawl ah ee kale waxay noqon doonaan cidda khusaysa ayaanu ku wada xidhiidhi doonaa correspondence